بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن أخياري وعبرتان يوتيوب كلنا هي قلقلوع استوديو waxaan idin soo gudbinaynaa maanta qaar ka mid ah dadka adduunka ugu cayilan kuwa dhintay iyo kuwa hadda noolba. Sambig Khatarchov waa wiil yar oo u dhashay dalka Ruushka, da'diisuna ay tahay 11 sano jir, miisaankiisu wuxuu gaarayaa 145 kilogram. markii uu dhashay caadi ayuu ahaa miisaankiisu sida carruurta kale, laakiin markii uu dhowr sano gaaray ayuu cunay waxyaabo macmacaan oo nafaqadu ku badan tahay. muddo kooban gudahood ayuu kor u kacay miisaankiisu in ka badan 13 kilogram. Trismeth gabadhani waxay u dhalatay Ameerika, miisaankeeduna waxa weeye 318 kilogram, mana awoodin inay kor uga kacdo furaashkeeda sababo la xiriira culayska jirkeeda. waxaana caawiya gabdhaheeda iyo ninkeeda oo u keena wax walba ay banaanka uga baahato. Mayro Rosalis waxay dhalatay sanadkii 1980, waxayna ka mid tahay haweenka ugu cayilan adduunka. miisaankeedu wuxuu gaarayaa 454 kilogram. waxay hore u dishay ilmo yar oo 2 sano jir ah oo uu walaalkeed dhalay. markii maxkamadda la hor keenay dhacdada tan, waxay go'aan ku gaadhay maxkamaddu inay iska sii dayso maadaama ay tahay qof aad u cayilan oo ay xitaa awoodin inay gacanteeda kor u qaado. carruurteedii iyo ninkeediiba way ka tageen, haddana waxay kali iyadoo ku nooshahay gurigeeda, waxay taama haysato qof caawiya. Michael Hibranko waxaa loola cararay isbitaal ku yaal magaalada New York sababo la xiriira miisaankiisa oo saa'id noqday. culayskiisu wuxuu gaarayaa 314 kilogram. dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay hoos u dhigaan miisaankiisa, iyagoo ugu dambeyntii 94 kilogram ka dhimay, laakiin sanadku markuu ahaa 1999 ayaa markale loola cararay isbitaalka isagoo miisaankiisu noqday 500 kilogram. Kenneth Bromley waa aabbe 4 carruur ah. ninka miisaankiisu wuxuu gaaray 470 kilogram. qiyaastii muddo 4 sano ah ayuusan hal marna kor uga kicin sariirtiisa sababo la xiriira miisaankiisa. niman badan ayaana iskugu tagay sidii ay uga soo saari lahaayeen gurigiisa si loo geeyo goob lagu dabiibo. dhakhtar ku takhasusay qalliinka ayaa ku guuleystay miisaankiisa inuu hoos u dhigo ilaa ay intuu ka gaarsiinay 316 kilogram.